السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرضي أن كسر دواد 10 كيني سديدات بوجيني beginner ka ama level 2 ga and page 76 baan soo dhiganay waxaan doonaynaa maanta inaan dhigano page 77 okay maalinkii hore waxaan soo dhiganay casharkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa maxay qolka wixii dhex yaalay inaan ka hadalnay aan magacyadoodina sheegnay soo maaha okay maanta waxaan ka hadlaynaa maxay qolkii ayaan sifaynaynaa anagoo sheegayna shay walba meesha yaalo iyo tiradiisa. Alright, read the text. akhri qoraalka and describe the picture. kadibna sifee sawirkan qolka ku muuqdo. Okay, waxaan akhrin doonaa qof qolkiisa describe garaynaya ama sifaynaya. Okay, kadibna waxaan eegi doonaa sawirka iyo description-kiisa ama sifadu ka bixinaya qolka inay isla yihiin. wuxuu ku yiri number 1 my room buu ku bilaabay qolkayga. This is my room, kan waa qolkayga. There's only one window in my room. There is one window in my room. How daaqad baa ku taala qolkayga. Okay, or let's see, there's only one window. Okay, waxa kale ku yiri there is a sofa at the window. daaqad agteeda waxa yaala sofa. Sofa waa maxay? waa kursigii dheera sama kan. Okay, waa kursigii dheera ayaa daaqad agteeda yaala yiri. There is a sofa at the window. There is a table in the room. There is a table in the room. qolka waxa dhex yaala miis sama miiskii baka. Okay, there is a table in the room. There are two chairs at the table. There are two chairs at the table. laba kursi ayaa miiska ag yaala. kursi kaa ku fadhiyo iyo kursiga dambe soma. Okay, there are two chairs at the table. There are two chairs at the table. There are two chairs at the table. miiska waxa ag yaala laba kursi. There is a computer on the table. There is a computer on the table. Okay, computer ayaa dul saaran miiska. Okay, miiska waxa dul saaran maxay? Computer, which is that one. So waka. And we also have there are books and a copy books on the table. waxa saaran buugaag iyo buugaag kale oo soo koobiyay ayaa saaran miiska dushiisa. oo buugaagtii iyo koobigii buugaagta kaleba ayaa saaran. Alright, wuxuu ku yiri there is a big bookcase in my room. qolkayga waxa yaala maktabad ama shelf weyn oo buugaagta loogu talagalay. meesha buugaagta ama qaanada weyn ee buugaagta ama coverka buugta loo qorto oo weyn ayaa qolkayga dhex yaala. oo waa ka big bookcase. There is a big bookcase in my room. There is a big bookcase in my room. My books are in the bookcase. My books are in the bookcase. Okay, buugaagtaydu waxay ku jiraan shelfiga ama meesha buugaagta lagu qaanada buugaagta lagu qorto ay ku jiraan. oo kuwa buugaagtu meesha ku wada taxan. Alright, my bed is near the bookcase. sariirtaydu waxay u dhowdahay bookcase-ka ayay u dhowdahay ama waxay u dhowdahay qaanadii ayay buugaag meesha buugta la saaray ayay u dhowdahay sariirtaydu. There are toys on my bed. There are toys on my bed and on the sofa. waxa saaran toys. toys waa maxay? waxay ciyaalkay ku ciyaarayeen ama caruusada ha noqdo ama ha noqdo gaari yar carariya ama diyaarad yar ha noqoto. waxa la wixii ciyaar ku ciyaaraan waxa la yiraahdo toy. Okay, waxa ciyaar ku ciyaaraan ama caruusada ayaa saaran sariirta iyo kursiga dheer ee weyn. waxa saaran waa maxay? caruusadu
ayaa saaran. Alright, well, 1 iyo 2 soma. Okay, 1 iyo 2. Okay, there is a big carpet on the floor. Okay, there is a big carpet on the floor. Waxaa yaala roog weyn ayaa yaala. Waxay ku yaalaa maxay? Dhulka. Floor waxa la yiraahdaa sibirka ayaa la yiraahdaa sibirka. waliba dee guriga la mariyo marka maxaa dhulka waliba aan ku socono ama ha ahaado sibira ama mutuleel ha ahaado waxa la yiraahdaa floor qaybtan hoose. Okay, and there's an armchair near the door. Waxaa yaala armchair kursigii lahaa meesha gacmaha la saarto ayaa u dhow albaabka xaggana. Okay, my room's not big. Qolkayga ma weyna, but it is comfortable. Qolkayga ma weyna laakiin waa mid raaxo leh. Okay, waxaan sameynaynaa markaa erayada cusub ee nagu cusub maanta ayaan hoosta ka calaamadin doonaa. Okay, waan naqaanaa sida loo yiraahdo, waan soo dhiganay sida loo yiraahdo there is iyo there are. soo dhiganay there is iyo there are sama. Okay, there is waxaa loo isticmaalaa wax markuu yahay single leedahay waxa yaala. There are waxaa la isticmaalaa markaad ashyaa badan ka hadlayso leedahay waxaya xaggan yaala ama 10 shay. haddaad leedahay wax there are books book badan baa yaala. haddaad leedahay hal bookna there is a book buu noqonaya waxa yaala book sama. Okay, aan eegno erayada nagu cusub maanta. Okay, my room, this is my room. kan waa qolkayga. Okay, it's not big. Big waxaa la yiraahdaa not big. It is not big maaha, sorry, ama ma weyna qolkaygu. Let me saxintaa. Okay, where's the pen? Okay, it's not big. ma weyna. It's not big. Big waxaa la yiraahdaa weynaanshaha. Okay, not no maxay maaha ma weyna. Okay, only clear only clear. Okay, and there is only one window. hal daaqad kaliya ayaa ku taala qolkayga. Okay, there is a sofa at the window. At waa preposition xasil ma maxay markuu shay kale u dhow yahay ama uu ku dhagan yahay baa yaala at. There is a table in the room. Okay, xagga waxaan u warsan kuma jira in ma maxay gudaha ama dhex yaal. In waa markaa shay gudihiisa ka hadlaysa. In the house, in the room, in the car, in my pocket, in waxay noqonaysaa maxay gudaha waxay noqonaysaa in. There is a table waxa yaala miis in the room qolka gudihiisa. There are 2 chairs waxa yaala 2 kursi ayaa yaala at the table. at waa anaga soo dhigano ma hadda maxaan niri maxay markuu shay kale u dhow yahay ama uu ag yaala ayaan isticmaalnaa at. labadan kursi waxay ku dhigan yihiin ama ag yaala maxay the table miiska. Okay, there is a computer on waa maxay xagga sare ama dusha ayaan raana on. Computer ayaa yaala miiska dushiisa. There are books and book copy wali baan u soo noqoto ah buugag ayaa saaran maxay on the table miiska dushiisa. Okay, there is a bookcase in my room. Okay, inuu soo noqdo dana maxay qolkii gudihiisa waxa taala maxay big bookcase waxaan rabnaa in meeshan qaanada buugta la soo wada sawirkeedii maanta iyo shalayba. There are my books are in the bookcase. in hadana soo noqoto buugta waxay ku
guda jiraan ama dhex yaalaan oo maxay bookcase soo ma alright my bedroom is near waa maxay ku dhow shay markuu shay u dhow yahay ayuu yahay laakiin uusan ku dheganayn near u dhow okay u dhow waxay u dhowdahay sariirtayda bed waa sariirtaydu waxay u dhowdaa waa maxay the bookcase meeshii buugta lagu ridanayay there are toys on my bed and on the sofa waxyaalihii ku ciyaaray ayaa saaran sariirtayda iyo weliba kursiga weyn ee sofaha loo yaqaano and there is a big carpet on the floor roog weyn carpet waxaa la yidhahdaa roog floorna waxay noqonayaan on the floor waxay dul saaraya maxay shamiitada ama sibirka ama mutulaalkii dhulka yaalay iyo ayuu dul saaran yahay okay there is an armchair waxaa yaala kursigii gacmaha meesha la saarta lahaa near oo nagu soo noqotay xagu yaala meel u dhow waa maxay albaabka niyada dhow meel albaabka dhow my room is not big qolkaygu ma weyna not big soo noqotay iyaduna and but it's comfortable waa maxay comfortable waa shay ama meel lagu nasto ama meel raaxa leh qolkayga ma weyna laakiin waa meel raaxa leh but waa maxay laakiin way macnaheedu but okay arday insha Allah cashirkeena 8aad inta ayaan u gudbaynaa maanta. Assalaamu calaykum.